kulan wacan saaxiibayaal sheeko xiiso leh oo ku saabsan taariikhda kubadda cagta ayaan maanta idinla wadaagi doonaa ka hor bilowga sheekadan boggan follow inoo dhaha muuqaalkan ah inoo sheer gareeya mahadsanidin kubadda cagta ee casriga ah ciyaarteedu qarnigii 19aad ay ka bilaabmatay dalka Ingiriiska wixii ka horreeyay qarnigii 19aad kubadda cagta waa la ciyaari jiray laakiin deegaan walba iyo dad walba waxay ku ciyaari jireen si ayaga u gaar ah waxayna ku ciyaari jireen xeerar u gooni ah kubadda cagta ee casriga ah waxa aynu uga jeednaa nooca ciyaarta ah ee xeerkeedu ka mid yahay in 11 ciyaartoy garoonka soo galaan goolhayaha oo kaliyana loo ogol yahay inuu kubadda gacanta ku qabsan karo magaalada London ee dalka Britain ayaa xeerkan lagu sameeyay sanadii 1863 sanadii 1872 ayay ciyaartii ugu horeysay ee caalami ah ka dhacday magaalada Glasgow Scotland ee dalka Ingiriiska ciyaartaasi waxay dhex martay labada kooxood ee England Scotland waxa ay ku dhamaatay barbardhac eber ah koobkii ugu horeeyay ee loo tixgeliyay inuu caalami yahay waxa lagu qabtay isla dalka Ingiriiska sanadii 1884 waxaana ka qayb galay 4 gobol ee uu dalkaasi ka koobnaa England, Scotland, Ireland iyo Wales. Isla kolkii uu kordhay xiisaha kubadda cagta waxa loo baahday in la helo urur isku xidha kubadda cagta ee dunida. Magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa lagu aasaasay urur loo bixiyay Federation International Football Association marka la soo gaabiyana magaciisa uu noqonayo FIFA. ururkani bilowgii hore waxa uu metelayay isku xidhka kubadda cagta ee dalalka Faransiiska, Belgiumka, Denmark, Netherlands, Spain, Sweden iyo Jarmal oo mar dambe si dirqi ah ku soo gashay. Kubadda cagtu si weyn ay muddada kadib u sii shaac baxday. Sanadihii 1904, 1906 iyo 1912 waxa la qabtay bandhig kubadeed aan lahayn ujeedo ka shisaysa in dalalku ay fagaarayaasha isku soo bandhigaan dabcan ciyaartoyda kasoo qayb gashay badankoodu ma lahayn tababar fiican iyo xirfad kubadeed midna sanadku markuu ahaa 1930 ayay xidhiidhka kubadda cagta ee adduunka FIFA si rasmi ah u qabatay tartankii ugu horeeyay ee koob adduun lagu magacaabi karo tartankaasi waxa lagu qabtay dalka Uruguay waxaana ka soo qayb galay 13 dal oo uu ururka FIFA marti qaaday si aan hanaan tartan ku imaan waxa la ciyaaray 16 ciyaarood isugeynta goolashii la dhaliyay intii koobkaasi socday waxay ahayd 70 gool ugu dambeeyna waxa ku guuleystay dalka Uruguay koobkii xigay sanadkii 1934 ayaa la qabtay dalka Talyaaniga waxaana ka soo qayb galay 16 dal koobkaasi waxa ku guuleystay isla dalka Talyaaniga koobkii xigay sanadii 1938 ayaa lagu qabtay Faransiiska oo waxa ka soo qayb galay 15 dal waxaana ku guuleystay dalka Talyaaniga intaasi wixii ka dambeeyay kubaddii adduunka waxa galay hakad muddo 12 sanadood ah ayaana la qaban wax koob adduun ah waxa arintaasi sababay dagaalkii labaad ee adduunka oo muddada dunida ka socday dabadeed 1982 ayaa tirada dalalka ee fagaaraha koobka adduunka ka tartami kara laga dhigay 24 dal halka sanadkii 1998 tiradii la sii kordhiyay oo laga dhigay 32 dal laga soo bilaabo sanadkaas ilaa maanta tirada dalalka ee ka soo qayb gala koobka adduunka waa 32 dal sanadii 2013 waxa bilaabmay qorshe lagu kordhinayo tirada dalalka ee isugu soo haraya ka qaybgalka koobka adduunka waxaana la soo jeediyay in tiradaasi laga dhigo 84 dal dabadeed sanadii 2017 ayaa la isla qaatay in tirada dalalka ka soo qaybgali doonaan koobka adduunka ay sanadka 2020 ka noqdaan 48 dal koobka adduunka ee sanadka 2026 waxa si wada jir ah loogu qaban doonaa dalalka Canada, Mareykanka iyo sidoo kale Mexico laga bilaabo markii la aasaasay ururka FIFA wuxuu qabtay 21 koob adduun koobkaasi waxa marka koobkaasi waxay soo tixnaayeen muddo 92 sanadood ah sidaasi ayuu koobka adduunka ku noqonayaa ciyaarta caalamiga ah ee waqtiga ugu dheer soo taxnay dunida oo idil shirweynaha uu ururka FIFA yeesho ayaa lagu xushaa dalka lagu qabanayo koobka adduunka kol kasta inta badanna waxa go'aanka lagu gaaraa hanaan codayn ah ugu yaraan 7 sano ka hor waqtiga koobka adduunka lagu qaban doono ayaa dalka la sii ogeysiiyaa koobka adduunka dalka lagu qabto saameyn weyn buu ku darsadaa dhaqaalihiisa guud dalka Brazil ayaa ah dalka qudha ee 5 jeer ku guuleystay koobka adduunka ilaa iyo hadda waxa ku soo xiga dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga oo midkiiba 4 jeer ku guuleystay guuldaradii ugu weyneed ee ka dhex dhacda ciyaaraha koobka adduunka waxa ay ahayd tii ku dhacday wadanka American Zoma taa oo dalka Australia kaga badiyay 30 gool iyo eber ciyaartani waxay dhacday sanadkii 2001 waxayna ahayd ciyaar kamid ah ciyaarihii isla rabka ee lagu soo xulanayay dalalka ka qayb gali doona koobka adduunka ee sanadkii 2002